kulan ballaaran oo lagu daafurayay maalinta nadaafadda deegaanada Khaatumo ee 18 May oo sanad kasta deegaanada Khaatumo laga xuso maalintan waxaana gudaha magaalada Laascaanood lagu qabtay kulankan oo lagu daafurayay qashin gurka oo ay ka soo qayb galeen inta badan bulshooyinka ku dhaqan gudaha magaalada Laascaanood iyo deegaanada Khaatumo kulankan daafurka maalinta nadaafadda deegaanada Khaatumo ayaa waxaa ka soo qayb galay ururka haweenka ee Daryeel Women Organization oo iyagu soo qaban qaabiyay xafladan inta aysan bilaabmin qashin gubku ayaa waxa ay ka warbixiyeen maalintan oo ay sheegeen in ay xusaan sanad kasta 18 May waxaana ka soo qayb galay xafladan afayeenka ururka bahweynta gobolka Sool ee Daryeel Women Organization iyadu ku dheeraatay xafladan iyo qiimaha ay u leedahay nadaafadda deegaanada Khaatumo iyadoo sheegtay in haddii aadan qashinka iska gurin uu keeni karo xanuuno aad u tiro badan oo ka dhasha qashinka waa sida ay hadalka u dhigtay hay'adaha halkaasi hadal ka soo jeediyay haween aad u tiro badan oo iyagu ka hadlayay xafladan iyo maalintan oo ay sheegeen in ay qof walba reer Khaatumo ah ay tahay in uu xuso nadaafadayana deegaanada uu ku sugan yahay waxaana halkaasi laga qaaday buraanburo maansooyin iyo heeso ka yaabiyay dadweynihii ka soo qayb galay bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo sabtiya waxa weeye waxa loo dabaaldegayaa oo maxaa sheegay hawshiisa la qabanayaa 18 May oo u ah maalinta qashin gurka Khaatumo State of Soomaaliya gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxa weeye annaka waxay noo tahay maalintii qashin gurka wakaad arkaysaana waxa weeye qashinkii baan gubaynaa gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo ah gobolada Khaatumo State of Soomaaliya oo ay u tahay maalintii qashin gurka waxa weeye maanta oo sabti ah bishuna tahay 18 arki maysay ina adeerso hays oranin cidi ku arki maysay canka buuxso taasaan u leenahay Xasan Sheekh Maxamuud baan inta leen annaga oo sawirkiisii iyo hambaliyadiisii iyo salaantiisii lagu xidhay oo nalagu geeyay Mandheera oo Soomaaliland say doonto ay noo gashay walanama uusan oran xagee Khaatumo State deganta waa nasiib darro taasi laakiin waxaan u leenahay waxay Soomaalidu tiraahdaa haddaad weyn tahay weyd looma noqdo is ilaali Xasan Sheekhow waxaan ku soo dhaweynaynaa annaga oo maanta u dabaaldegayna qashinka maalinta qashinka oo 18 May laga xuso gobolada SSC maamulka Khaatumo State waxaan leenahay oo kale oo ku soo dhaweynaynaa dadweynaha Khaatumo State meel kasta ay joogaan oo gudaha Soomaaliya ah in ay maalinta u dabaaldegaan una istaagaan maalinta qashinka sida gobolka Cayn sida gobolka Sanaag sida gobolka Sool min tuulo min miyi in dadku ay u soo fagaara baxaan waxaan kaloo halkan wax ka hambaliyaynayaa maamulka Jubbada anoo ku hadlay afayeenka ah ururka maamulka Khaatumo State ee ururka haweenka waxaan u hambaliyaynaynaa maamulka Jubbooyinka madaxweynihii lagu dhawaaqay shalay madaxweyne Axmed Madoobe oo loogu dhawaaqay 15 bishii loogu dhawaaqay madaxweynihii Jubbada waxaan leenahay jiro jooga Jubbadu waa garabkayaga maamulka Khaatumo oo idin eegaysaa idin leedahay meel kasta oo jirto ma Khaatumo ku nooshay daafaha adduunka waxay idin leedahay jiro jooga kala dhicina hadan taalmina midigta isqabsada annagana noo soo duceyn Ilaahay sanadkiisa aan bisheeda aan annana ku ciidno gobolka Sool ku hadlaya magaca afka dhalinyarada gobolka Sool ururka la yiraahdo SWAY oo waxaan halkan maanta isugu soo baxnay inaanu nadaafino magaalada qashinka naga gurno maadaama ay tahay maalintii qashinka loo aastay 18 May maalin sabtiya oo laga guro maalintaas oo kale gobolada SSC qashinka ama Sool iyo Sanaag Cayn gobolada loo yaqaano sidoo kale waxaan ku soo bandhigayaa halkan maansal la magac baxday guul oo aanu tiriyay waqtigu markii uu dhadhawaa guusha Khaatumo dhageysi wanaagsan goobihii la sahanshay Khaatumo lagiyo gulihii la durto guul baynu filaynaa guul baynu filaynaa goobihii la sahanshay Khaatumo lagiyo gulihii la durto
قول بينو فيلينا قول Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ilaahay shuushka ka qaado ilaahay si soo dhaweeyo xasanna ha dadaalo ha isu keeno isaga madaxweynaha ha isu soo dhaweeyo kala fogeynta ha ka daayo ha isu soo dhaweeyo sida maxay ahayd toy baarlamaanka iyo maxay ahayd toy ragga aqoon-yahanka ay u jecel yihiin inay isugu soo dhawaadaan baarlamaanka qaarkood مثلا سيدا كسو قالي قريف iyo wixii lamida waxa weeye isu soo dhawee madaxweyne dadka kala fogeyn anagu waxaanu leenahay gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha noogu jira xilkow xilisa saara xafadiina u xuslinina dadku waa idin siman yahay waa la idin wada doortay isha la idin ka wada eegaya saqiir iyo kabiir gabdhaha Soomaaliyeed oo istiila ragga waxa la yiraahdaa nuxnaageed ninka adag gabdhaha la doortay oo islaaliya wiilasha xilka qaado oo xil qaadayeed qaad baa la yiri waxaanu kaloo salaamaynaa soo dhaweynaynaa hambaliye iyo bogaadin hawada u soo marinaynaa hadaanu nahay ururka gobolka Sool daryeel waxa weeye waxaanu hambaliye go'aan u soo marinaynaa dhalinyaro waayeel iyo maxay tahay waxgarad hambaliye go'aan waxaanu soo marinaynaa Jubbada 15 May la doortay madaxweynaha ay yiraahdo Axmed Sheekh Maxamed Madoobe Sheekh Axmed Madoobe la yiraaho kulligii sheekh baa la idin leeyahay de anigu sheekhnimadiina garanba maayo bal adiga Allah ku barakeeye soo wada adigu sheekhna waa wada tihiin hadana sheekhyadiina ma qaan munaasabada iyadoo jawi aad u qurux badanna ku dhamaatay munaasabadu dhanka kale iyadoona ay haweenka gobolka Sool ambaliyo u direen Axmed Madoobe oo loo dhaariyay 16 May madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane Axmed Madoobe oo hadda xilka madaxtinimo haya وحمسة عبد الرحمن أحمد شبكة ورارك إيه دلدون مقالة الله سبحانه دي حارونتا gobolka Sool